daawo loogu talagalay isbitaalka danta guud ee degmada Xaradheere ayaa waxaa shalay soo gaarsiiyay isbitaalkan Xubbi Macalin Sitey oo ah gabar u dhaqaaqada arrimaha bulshada. daawadan ayaa waxaa soo dhiibay una soo wakiilatay Xubbi Macalin Sitey hay'adda Sadma oo ugu deeqday isbitaalka danta guud ee ku yaala degmada Xaradheere si loogu adeego shacabka Soomaaliyeed. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Xubbi Macalin Sitey oo ah gabadhii loo soo wakiishay deeqdan daawada ah isla markaana soo gaarsiistay isbitaalka degmada Xaradheere. maanta waxaan joognaa isbitaalkii degmada Xaradheere oo aan soo gaarsiinay daawadan ay noo soo dhiibtay hay'adda Sadma iyo iska kaashadeen wasiir Culisow aad uga mahad celinaynaa anigoo wakiil ka ahayna waxaan ku wareejiyay agaasimihi isbitaalka aad iyo aad waxaan rajaynayaa in gacantii ugu horeysay aysan noqon gacantii ugu dambeysana aysan noqon ilaa idinkiis ninka la yiraahdo waxyaabo badan aan idinka sugaynaa isbitaalkii daawo ma haysto gargaar iyo gacan adinka dawladda ugu ah oo la rabaa inaad soo gaarsiisiin meesha waxa joogana waa ciidan meeshu waa furun. sidoo kale waxaa hadalka qaatay nabadoon Maxamed Shiro Koofure oo uga mahad celiyay isna dhankiisa isagoona bogaadiyay garab istaaga ay u muujisay hay'adda Sadma. meeshan waxaan ugu soo gaaray daawo ay noo soo dhiibtay hay'adda Sadma oo noogu soo dhiibtay Xubbi Sitey. daawadaas waana soo gaartay maanta waxaan dhex joognaa waa isbitaalkii waana la soo gaarsiiyay annagu waxaan joognaa goob dagaalaan ugu furan maalin walba dhaawac ayaga iyo haddaan dagaal galno wixiina gaara isbitaalku daawo noomale hay'adana intaan yartaan ugu soo caawiday haddaan meeshu ay goob dagaal tahay shacabkii iyo ciidankii iyo wixii oo dhan isku jira daawadoodii halahaas intaas u keenta waay. waxaa soo xiray hadalka isla markaana soo gunaanaday Dr. Bashiir oo ah agaasimaha isbitaalka degmada Xaradheere isagoona sheegay inay u baahan yihiin gargaar intaan ka badan iyo garab istaag intaan ka badan ayna muhiim u tahay in ilgooniga lagu hayo isbitaalka degmada Xaradheere iyo daawadiisa. waxaan galabta halkan isugu nimid xogaa daawo ah oo ay noo soo dhiibtay hay'adda Sadma oo uu nooga xiriirinayo wasiir Culisow iyo gabadhan maxaa la yiraahdaa Xubbi Sitey. waa ka mahad celinaynaa daawooyinkana soo gaarsiiyeen waa aad iyo aad waa dad oo runtii hay'adda waa ka sugaynay intaan iyo in ka badanba waa ka sugaynay horey waa noo soo booqdeen waa ballansanayn laakiin waa naga soo daaheen haddana waxa weeye waan helnay waa daawadan inta noogu taal waana insha Allah daawadan rabno inaan uga faa'iideyno dadka degan deegaanka Xaradheere anigoo ah agaasimaha isbitaalka degmada Xaradheere aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa cid kasta oo wax nagu soo ziyaadsana waa runtii waa ka abal celinaynaa insha Allah oo dadkooda soo xusuusta. Ismaan Cabdi Shiiqow telefishinka qaranka Xaradheere.